بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبي وناكسن داوديال halkan waa telefishinka danan ku soo dhawaada warkii oo kooban waxa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya maanta waxa lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka shahaadiga ahaa oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda xilli maanta la soo gabagabeeyay imtixaanaadka shahaadiga ahaa oo ay qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya saaxiibayaal intaas waxay hayeen qodobadii ugu door corona ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan caawan waxa idin akhrin doona anigoo Cabdulqaadir Sheekh Cabdullaahi Maxamed Duceysane magaalada Muqdisho maanta waxa ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxda kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa barahooda waxay ku soo qoreen tacsi ay u dirayaan ehelada iyo qaraabada iyo guud ahaan saaxiibada uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari baga filla Soomaaliya ayaa qoraal lagu soo daabacay sida tan u qornaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tacsiid tiiraanyo u dirayaa ehelada qaraabada iyo guud ahaan saaxiibada uu ka geeriyooday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo siyaasiyiinta iyo madaxduba ay isla qireen inuu ahaa nin qaamuus socda taariikhda Soomaaliya marka la fiiriyana magac iyo maamuus ku lahaa isla markaana kaalin weyn ka qaatay dib u dhiska dalka iyo horumarinta isagoo lagu xasuusan doono doorkiisa kaga aadan dhinaca dastuurka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale tilmaamay inay adag tahay in booskiisa la buuxiyo gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo laba xilli isku xigta soo noqday gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya kadibna markaasi waxa kala wareegay Maxamed Mursal xilli markaasi ay isqabteen isaga iyo ra'iisul wasaarihii xilligaasi Xasan Cali Khayre هذا وريهنا عبد الله علي محمود عبد الله يرى يا وحى وسوكو بيا تاريخ نولد كالله ونحرسته بروفيسور محمد الشيخ عثمان جواري الله ونحرسته وحى جودها مقالة مقدشو ما تكو جريودي قدومي هري بارلمان كجمهورية الفدرال كصوماليا حريد يوسف قد بين دونا تاريخ يسوع كوبان محمد الشيخ عثمان جواري وحى وتضبطي بشي ديسمبر سنة دي يكون سقال بقولشان يا فرتن كي كل شيء degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca tacliinta sare waxa uu sanadku markuu ahaa 1982 ka qalin jabiyay kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isagoo xilligaasi ka horna qaatay shahaado macallinnimo oo luqadda Ingiriiska iyo diblooma sharciga Islaamka dhinaca shaqada waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii militariga ee Soomaaliya oo horkacayay madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre isagoo agaasimo guud iyo xoghaye joogto ah iyo wasiirba ka soo noqday wasaaradda dhowra waxa uu soo noqday wasiirka wasaaradda gaadiidka dhulka iyo cirka waliba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhinaca kale waxa uu sanadii 1970 gudoomiye ka soo noqday koox diyaarisay sharciga shaqada ee dalka Soomaaliya sharcigani oo looga gol lahaa dib u habeynta meelaynta shaqaalaha iyo qiimeynta xirfadleyda gudigani waxa uu xeerka sharciga shaqaalaha Soomaaliya waafajiyay xuquuqda shaqaalaha ee caalamiga Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa kale oo shaqooyin dhinaca arrimaha bulshada ka qabtay dalka Norway uu ku noolaa intii burburka uu ku jiray dalka Soomaaliya dhinaca dastuur samaynta Soomaalida waxa uu bishii May ee sanadii 2008 ilaa iyo bishii December ee sanadii 2010 la taliyay oo dhinaca dastuur samaynta u ahaa xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo waliba hay'adda UNDP-da waxa uu intaasi kadib noqday gudoomiyaha guddiga qubarada dastuurka oo dib u eegis ku sameynayay qabyo qoraalka dastuurka diyaarinta dastuurka si loo ansixiyo محمد الشيخ عثمان جواري dhanka luqadaha Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa uu ku hadlayay luqadaha Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo luqadda Norwejiga
isagoo ugu dambeyn maanta ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho ayaa madaxda Soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogto waxa ay hawada u mariyeen tacsiyada ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyooday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. mahadsanid Cabdullaahi Yare. haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa qorshuhu yahay in ay u magacowdo guddi ka shaqeynaya aas qaran maadaama Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu ahaa nin markaasi magac iyo maamuus ku dhaxleh siyaasadda Soomaaliya bulshada Soomaaliyeedna ay dareemi doonaan doorkiisa kaga aadan kaalintii uu ku lahaa dib u dhiska dalka. magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka shahaadiga ahaa oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. haddaba taliyaha booliiska Soomaaliya Sulub waxa uu tilmaamay in ardayda kaalmaha koowaad iyo labaad gala ay qaadan doonaan isla markaana ay u diri doonaan tababar. waxa uu tilmaamay in ay ka faa'iideysan doonaan ardayda ku dadaalay tacliintooda isla markaana iyagu waqti geliyay sidii kaalmaha koowaad iyo labaad ay u geli lahaayeen xilli isaga iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ay maanta si wadajir ah u soo xireen imtixaanaadka shahaadiga ah oo ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya. waxaase xusid mudan in magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC ay markan noqonayso markii ugu horeysay ee lagu soo gabagabeeyo imtixaanaadka shahaadiga ah oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. haddaba taliye Sulub iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlaya gabagabada imtixaanaadka shahaadiga hadaladoodii waxa kamid ahaa guul iyo barwaaqan idin rajaynaya. waxaan rabaa inaan ku daro imtixaanaadkan maantay inoo dhamaaday ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad ardayda ka gashay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciddii diyaar u ah inay ku soo biirto waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadano oo jaamacad 4 sano oo maaragtay ciidanka uu ku soo biiraya inaan u dirno annaguna aanu ka bixino asagoo sargaal ahana oo ummadiisa uu u shaqeeyo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waanu in soo dhaweynaynaa waanu idinkaga mahadcelinaynaa runtii dhammaantiin baada saxaafadda iyo maaragtay hawlwadeennada intuba sidii fiicnayd maaragtay wararka aad u soo tabinayseen iyo sidii fiicnayd hawsha aad u wadeen aad u gudanayseen. aad iyo aad baa mahadsantihiin. guulaysta howlgalka ka bilowda halkaas ka bilowda ayaa waxa uu ku dhamaadaa maalinka imtixaanka la qaadayo oo la furayo imtixaankaas iyo ku dhamaadaa. waxa isugu jira hubinta ardayga xogtiisa inuu manhajkii qaatay iyo tayadii waxbarashada, diyaarinta iyo dejinta imtixaankii, daabulidii, geyntii goobaha imtixaanaadka loogu talagalay in lagu qaado, qaadistii imtixaanka ilaa imtixaanku si nabad ugu soo dhamaado ay kamid tahay waxyaabaha maanta aan halkan u taagannahay. dabcan intaas oo dhanna waxa ka qayb qaadanaya saraakiisha bahda waxbarashada iyo saraakiisha caawiyaasha ee la shaqeynaya. sida la socotaana ma ahan hawl yar. marka hawsha intaas la eg imtixaankii loo baahan yahay in imtixaanku uu ku bilaado si nabad ah. waxa mararka qaar dhacaysa marka in dad hadee mas'uuliyad daro ama xilkas la'aan ay u geysay in imtixaanku ay iska carqaladeeyaan ama de laga gudbiyo in xog qaldan laga gudbiyo. anagoo intaas muxuu ahaa ka hortageynana waxaan aad uga mahadcelinaynaa booliiska Soomaaliyeed. dad baa jira oo arintaas lagula xisaabtami doono loo soo qabtay. waxaan u daynaynaa booliiska Soomaaliyeed iyo ciddii kala shaqeynaysa ilaalinta ugu horeyso waxa ay ka soo saaraan insha Allah aan sugi doonaa. ugu dambeyntii dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan la socodsiinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay u gudbi doontaa wajigii labaad ee ah sixida imtixaanka iyo soo gudbinta muxuu ahaa resultiga ama natiijada ardayda. waxaa barbar socon doona ardayga cabasho qabo waa ay furan tahay cabasho. ardayga cabasho ka qabo habka imtixaanka cabasho waxa u furan inuu soo cawdo. wasaaraduna mar kastaba xafiiska imtixaanaadka waa u furan yahay inuu la falgalo ardayda Soomaaliyeed. ugu dambeyn mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed. waxaan idinku hambalyeynaa in imtixaanka idin soo gabagaboobay. waxaan idinku hambalyeynaa akhlaaqdii iyo wanaagii iyo xilkasnimadii aan muujisay intuu imtixaanka socday. iminka Beledweyne qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin in muddo isbuuc ah ay juhdi iyo waqti adag ku bixiyaan inay ka qayb qaataan imtixaanaadka shahaadiga ah oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
waa kuwan qaar ka mid ah ardayda oo markaasi iyagu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin sida ay uga soo qayb qaateen imtixaanaadka shahaadiga. waxaa mikrofonka raadiya haddana la dhex qaaday warbixinta warkan beledweynena ka soo diray wariyaheena Liibaan Subane. in ka badan 500 oo kun oo arday ayaa maanta u soo ilaaday imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiyada sare. ardaydan ayaana muddo 6 maalmood waxa uu socday imtixaankooda waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in uu soo ilaado maanta imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiyada sare. أولاً أنا ذو أحمر إمام عبد الناصر صعد استولت أفلح برنبري سكندري ستول ما أنت أدي يا والفرح سنة هاي إنه نوصل بدو امتحان شهادة دوسي الصراع وحنوم هاد علنا يا ضمان معلمينتي دي وارثي أنت وحاول رجعنا يا أرضي ما أنت فصلت فنفار وحاول رجعنا يا دول بدن إن شاء الله وحرجعنا يا دول امتحان شهادة دوسي الصراع سكله وما أنت إنه صار جب امتحان كدوسي الصراع فصل كفون فور ما هذا كوبد الله سبحانه وتعالى يوسقنات معيق وعيان عبد الله عدو وكمده أرضي دوسي حاوتاكو كنا جلسي شيخ محمد علن ما أنت والله درنكي قلمسو كوبي كرو وايو امتحانكي عنين بدن سوقينا يا ما أنت إنه سوق جبجبوي ما هذا كوبد هرت الله سبحانه وتعالى يا إسكال مد لبعض والدين تين أو إن بدن نقصو ديري كليه إن هير كان سوقرنا عقبت كستو أنات ماذا مركا الله يا سبحانه وتعالى ما هذا ولي يوسقناته ما أنت وحالك إنه جبجبوي امتحانكي شهادة دوسك سره فصل كفان فور قولا يا رجينا كالما هرينا سوقنا يا رجينا اسكول حاوتاك دي أنا قول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعباس عيسى محمد waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan kamid ahay ardada oo u dhamaanay imtixaanka F4 fasalka afraad ee dugsiga sare runtii maanta dareenkayga lama soo koobi karo dareenkaygu waxaan ku qiyaasay maanta wallahi ma shii karo aad ayaa ugu faraxsanahay mid kale bulshada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay walaalayaal wax la barto waalidiinta sidoo kale waxaan dhihi lahay ciyaalkiina wax barta waxbarasho yaraani weyni male waadarkayda ninka oo doctorka oo dhusmareemeedo oo asagoo ku tijir camal oo dhamaa maleela kaas oo fanfoor fadhiisanay laakiin waxa la yaabanahay nin oo doctor waa la leeyahay xilligan fanfoor fadhiisanaa sidoo dad daaway jiray ninkaas si kastaba haatee dadaal iyo juhdi ay geliyaanba ardayda fasalka 12aad ee dugsiyada sare maanta ay u soo ilaaday imtixaankooda. Liibaan Subane Daawud raadiyaha telefishinka caalamiga Danan TV Beledweyne. qodobreedkaasi ayaa ugu dambeeyay warka aad kala socoteen telefishinka Danan anigu duceysanahay waxaan u mahadcelinayaa Ibraahim iyo Mawlid oo dhinaca kaamirada iyo editing-ka warkan iyaga inoo qurxinaya warkan kiis xigeentan ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo. kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.